marka ugu horeysa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaanka bacdi wafdida golaha wasiirada oo hogaaminaya wasiirka wasaaradda cadaaladda Salmaan Warsame, wasiir ku-xigeenka Maxamuud Warsame, gudoomiyaha gobolka, xildhibaanada heer qaran ee baarlamaanka, mas'uuliyiinta ururada siyaasadeedada kaah iyo waaberi ee nala jooga, xildhibaanada golaha deegaanka, cuqaasha, gudoomiyaha jaamacadda iyo bahdiisa dhiimamka iyo macallimiinta, ardayda, waalidiinta, culimada iyo cuqaasha, bahda saxaafadda, taliyaha qaybta gobolka, dhammaantoodba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. mar labaad mar kale waxaan runtii aad iyo aad ugu mahad celinayaa oon halkan aad u jecelahay inaan uga mahad celiyo mas-uuliyiinta qiimaha badan ee xafladan bilay ee xildhibaanada iyo wasiirada iyo mas-uuliyiinta ururada ee ardayda say u dhiirigeliyaan runtii hor imaatikiina iyo la fadhigiina iyo la joogiina ayaa wax dhan u ah ardayda. aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin baan leeyahay. jaamacadda alfa mas-uuliyiinteeda runtii oo ugu horeeya professor cabdiqani oo aan ka mid ahay dadka uu suurtageliyay iyagoo shaqadooda wata gurigooda jooga wax dhaqanaya waxna dhalaya inay wax bartaan. professor cabdiqani iyo mas-uuliyiintiisa iyo dhiimankiisa aad iyo aad baan isagana ugu mahad celinayaa. guud ahaan anoo ka faa'iideysanaya jaaniska waxaan hambalyo u dirayaa 29 ka arday. waxaan leeyahay hambalyo. waxaan sidoo kale hambalyo u dirayaa waalidiinta ku soo tabcay iyo xaasaskooda. waxaan sidoo kale hambalyo u dirayaa mas-uuliyiinta jaamacadda alfa faraceeda magaalada Caynaba ee Cawl iyo Xamda oo dadaal weyn geliyay. guud ahaanba waa dufcaddii saddexaad maaha wax hawl yar. meelo badan baan ka sheegay waqtigu uu kooban yahay. bulshada reer Caynaba fariintan u diray waxa weeye inay ogaadaan cidda abaalka ku leh. runtii shirkadaha had iyo goor aan saado way ismatalaan. shirkadda macnaha jaamacaddan alfa iyo shirkadda Bedr Electronic Caynaba 2007 timiyadoo dama markii ay shaqada bilowday way kabi jirtay Caynaba oo shidaalka waxa laga soo bixin jiray jeebkiisu Bedr ka bixin jiray odayga. aad iyo aad ayaan runtii halkan uga mahad celinayaa. professor cabdiqani baa isna la mid yahay jaamacadda alfa labadii sano u horeeyay ama 3 sano u horeysay jaamacadda alfa Caynaba wax faa'iido kuma qabin iyada kabi jirtay burca laga kabi jiray. taasina waxay muujinaysaa lixjeclada iyo inay dhalinyaradu wax bartaan. aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa professor cabdiqani iyo mas'uuliyiinta alfa dhan. fariinta kala diray wax weey waalidiinta waxaan ka qayb galay qalijabintii jaamacadda burco ee alfa. waxaan ugu tagay ilaa 30 dhalinyaro reer Caynaba ka qalijabinaya jaamacadda alfa burco. macallimiinta wax ka dhigta jaamacadda alfa burco waa macallimiinta jaamacadda alfa Caynaba wax ka dhigta. haddaba waxaa la yaabay sababta ardaygu intuu jaamacadda alfa Caynaba ka tago uu u tagayo jaamacadda alfa burco oo isla macallimiintii u ah ee halkaa uu soo kordhinaya hadday tahay qarash iyo hadday tahay muxuu ah. marka waalidiinta gobolka Saraar fariintan u diraya sanadkan baxay waxa weeyaan intuu ardaygu jaamacadda Caynaba ka tago alfa inuu jaamacadda alfa burco tago maxay faa'iido u soo kordhinaysaa aan ahayn qarash iyo hawl iyo taasina waalidiintan u diraya waxa leeyahay war ardayda gobolka Saraar ka baxaysa ee haddana alfa burco tagaysa alfa Caynaba oo isla macallimiintii halkadeedii ka furan tahay. waxaan ku soo ururinayaa mar labaad iyo mar saddexaadba guud ahaan ardayda si gaar ah waxaan ugu mahad celinayaa ardayga ugu daada weyn oo runtii Cabdi Cali Meeyorta Cabdi Cali Bistaag dhalinyarada doonaya fariin u diree ilaalay waxbarashada daaxanibin ilaalay waxbarashada shaqa xanibin ilaalay waxbarashada guri baa leeyahay xaas baa xanibin. waxaa u tusaale Cabdi Cali wuu shaqeeyaa oo baab ka shaqeeyaa caruurtiisu way fara badan tahay. allah u barakeeyo. dacdiisana waa aragtaan dhalinyarada gobolka Saraar ee suuqa fadhida waxaa leeyahay Cabdi Cali ku dayda. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.